بسم الله الرحمن الرحيم kusoo dhawaada shabakada sologroups.com ee laga barto cilmiga IT-ga ama information technology ee ku baxa luqadda afka Soomaaliga. Magacaygu waa Cabdinan Ismaaciil, emailka waa info@sologroups.com. Security and testing waa casharo aad u xiiso badan oo ka baxa shabakada sologroups.com oo aan ku barano qaabka uu shaqeeyo security-ga IT-ga iyo anagoo isla markaa ku sameynaa tijaabo. casharada intooda badan waa codsi ka yimaada ardayda oo aan ku eegno qaabka ay u shaqeeyaan. Marka waxaanu ka hadli doonaa spy on everyone ama qof walba waa in aad spy ku samaysaa ama aad u gabataa ama aad ogaataa. Marka waxaanu isticmaalnaa software la yiraahdo HT Employee Monitor 9.3 oo version cusub ah oo waxyaalo aad u fara badan lagu soo daray. Marka software-ka maxaa loo isticmaalaa? Waxyaabo aad u fara badan ayaa loo isticmaalaa. Tusaale ahaan, haddii aad doonaysid qoyskaaga sida caruurta iskuulka dhigta, internetka meelaha ay ka galaan, meelaha blog kaga dhigi kartid. Tusaale ahaan, waxaad ka joojin kartaa website-yada qaarkood, taamayaad u samayn kartaa waqti ay ku isticmaalaan. waxaad gebi ahaan ka joojin kartaa Facebooka, YouTube-ka, Twitter-ka, wixii aad doontid. waxaad kaloo ku ogaan kartaa shaqaalaha haddii aad leedahay, meelaha ay galaan, waxyaabaha ay sameeyaan. Sababtoo ah dooni maysid xafiiskaaga in qof walba uu Facebook ama internetka ama chatka ama meelaha aan loogu talagelin shaqada uu isticmaalo. saa awgeeda ayaa software waxaa loogu yeeray HT Employee Monitor oo ah versionka ugu dambeeya. marka lagu leeyahay spying on everyone, macnaheedu waxay tahay qofka isticmaalaya systemka adiga mas-uulka ka tahay wixii aan loogu talagelin ayaa laga ogaanaya. marka laba option ama laba nooc ayaa jirta. nooc waa ogaan karaa qofkaasi in monitor lagu hayo ama la eegayo mar walba. midna waa qarsan yahay ama waa hidden, la arki maayo. marka adigu unbay ku jirta sidaa u isticmaashid. marka settingka lagu sameeya wax walboo la sameeyana wuxuu si automatic ah ugu diraa email ahaan ayuu kugu soo dirayaa, ama haddii aad doontid online ahayd ayaad usoo geli kartaa. marka isticmaalida aad ayuu u fuday qaabka loo isticmaalo. softwareka isagoo full version ah waxaad geli kartaan sologroups.com. marka tijaabo ayaanu sameynaynaa. softwarekii ayaa halkan noo taala. Minimize ayaan leeyahay, waxaan furayaa softwareka, kuwana minimize ayaan leeyahay. runtii interface aad u qurux badan ayuu leeyahay. waa iminka wuu socdaa. stop ayaan leeyahay, waa furay. marka active ma ahan, waa inactive, waa iska socday. saa ku aragtaan intan application iyo soo qabta halkan ku jiraan. saa ku aragtaan. marka adoon wax kala samayn, waxa ugu horeeya waa general setting ayaa tegaysa halkan optionska ah. marka options koosad waxaa general settings, user account, monitoring setting, email reporting and remote management. marka haddii aan ihahdo general settings, waxaa soo baxaya optionkan. kaasoo ugu horeyn waxaad arkaysaa systemka inaad u samaysid password. sababtoo ah in la bedelo waxyaalihii aad settingka ku samaysay la dooni maayo, ama qof uu ka saaro isagoo aadaya. marka dhan waa laga qarin karaa, dhan kalena waa loo sii dayn karaa. marka haddii tusaale ahaan aad doonaysid in shaqaalahaaga ama caruurtaada ama qoyskaaga ay arkaan in laga blocking gareeyo, waxaad leedahay show warning message when blocking website. haddii blog laga dhigo kan tus. marka kan waan xulaynaa hadda, marka dambena waan ka saaraynaa. marka programka wuxuu leeyahay option ah stealth option. stealth waxaa la yihahdaa qarsan. stealth waa waxaan la arkin. marka haddii aad doonaysid access kiga kan ayaa ku socdin kartaa. haddii aad doontidna kan waa bedeli kartaa. waxaad doontid ayaa ku bedeli kartaa oo aad ku qoran kartaa. tusaale ahaan, haddii aan ka dhigo control iyo s ayaan ka dhigayaa in aan ku soo celiyo controlkaasoo iyo sologroups aan ku soo celiyo. marka waxaad dhigi kartaa hide the program from everywhere. kana waan xulayaa, cid arki karta male. waa auto run on Windows startup. xilli walba windowga uu soo kaco isagana uu la soo kacaya. marka haddii aad doontid sharci ahaan ay qasab kugu tahay in aad warning aad u samaysid, halkan ayaad riixaysaa display splash warning on startup. kaasoo leh wixii doonteed ugu qoraysa. waxaad leedahay la soco. tusaale ahaan, staffkaaga la soco computerkan waa la eegayaa mar walba, ama waxay doonteed ku qoraysaa. marka waa qaabkan splash warning kan halkan ayaa soo dhigaysaa. marka tijaabadan waan sameynaa, ku galan waan sameynaynaa. monitor setting wuxuu monitor ku sameynaya ama uu eegaya ama spy uu ka dhigayaa
applications websitedii la tagay qoraalkii la qoray tusaale ahaan haddii lagu qoro password and username uu kusoo qaadayaa waxyaalihii la raadiyey waxyaalihii activity ahaa computerka dhexdiisa laga dhex sameeyey iyo isagoo sameynaya waxa la yidhahdo screenshot oo ah wuxuu sawir ka qaadayaa monitorka laftigiisa screen setting capture every 5 minutes ayuu leeyahay qualityga wixii aad doontid ayaa geenaysaa haddii aad doontid xilliga laguu soo diro kadib delete ku samee monitoring waxaad ka bilaabi kartaa schedule ayaad u samayn kartaa ama xilli loogu talagalay kaasoo waxaad dhigi kartaa waxaad ka bilaabi kartaa waqtigan ilaa waqtigan waqtigaas leedahay caruurta meelaha loogu talagalin ama qoyska meelaha loogu talagalin geliyaan waad eegaysaa email reporting kani waa very simple waxaad dhigi kartaa send me every 1 hour isu dirayaa leedahay monitoring halkan ku diraa tusaale ahaan emailkayga waa solargroups@hotmail طبعا emailkan waxba ku soo dirina cid monitor ku sameeysa male cid isticmaasha male marka wax kale setting uma baahnid waxaad leedahay subjectiga dadoontid waxaad leedahay spy ayaa lagu sameynayaa ama jajus waa la jajusaya luqadda afka Soomaaliga si la wax kale ha bedelin waxaad leedahay on kaliya send test report intaanan dhihin bal aan eego emailkayga emailka aan isticmaalayo waa kan oo ah sologroups@hotmail.com waxaa ku qoran Mr. Ilyas Ismail waa empty waxaa loogu talagalay kaliya in lagu sameeyo casharada marka waxaan leeyahay iminka send a test report ayaan leeyahay waa automatic by default ku noqday mail serverka maxaad u jeedaa test is successful waxaan aadayaa dhankii iyo emailka waa u jeedaa waa soo dhacay security@hightool.com wuxuu spy ahaan soo diray kaad aan bedelnay 1504 waqtigan xilligana san haddaan idhaahdo waxa halkan ku soo baxaya meelihii la tagay oo dhan oo horaan u tagay oo dhan waxa halkan ku soo baxaya Facebook inaan mar furay waxa ku soo baxaya wax walba oo la tagay waxyaalihii aan garaacay oo halkan marka password ayaa ku jira doonay maayo in la arko marka waxaan sameynayaa kan uu shaqay wax walbana emailka ayaa lagu soo diraya marka waan ogaanay kan uu noo shaqay okay aan lay every 1 hour la soo diraya web console-ka marka qaabkani wuxuu u shaqeeyaa web console-ka enable ayaa leedahay marka portigaaga waa in aad ogaataa inuu furan yahay in kale hadduusan furnayn firewall-ka waa inaad ka dulboodisaa loginka admin iyo admin ayuu noqonayaa hostname sologroups.com oo ah computerkaaga marka aniga firewall-ka tabcan waxaan ka dhigay block ayaan ka dhigaysaa awgeeda kan geli maayo test ayaa tiraahday adiga laakiin wuu ku gelayaa waxaad aadaysaa shabakada laakiin aniga blog ayaan ka dhigay webkana ba display ku leeyahay waa ku aragtaan marka reason ayaan u blog garay laakiin idinka hadduu idin furan yahay waa idin furay hadduu idin furan waa la furayaa dhanka firewall-ka ayaa laga furaa apply aad leedahay kadibna horaad ka isticmaalaysaa marka waxaan leeyahay system administrationka allow ayaan leeyahay ogolaabay ayaan leeyahay marka weli waa inactive waxba ma socdaan waxba ma jiraan marka isagoo sidan ah waxaan iminkan aadayaa user accounts-ka individual setting sologroups.com computerka ayaa la yidhahdaa waxaan monitor ku samaysaa wax walba update user hadduu yahay ku samee filter wax walba ku samee marka kaasi waan garanay user account monitor settingka okay haddaan soo aragnay email reporting waan soo aragnay waxaa kaloo arkanay email reporting remote management waan soo aragnay marka waxaan rabaa inaan aado halkan aan kusoo laabto Facebook blocking tusaale ahaan haddii aan idhaahdo Facebook block ka dhig Facebook hadda waa allow at website ayaan leeyahay waxaan leeyahay tusaale ahaan face small letter ayaan ka dhigayaa facebook.com kadibna waxaan leeyahay okay ayaan leeyahay marka haddii kuwan halkan loogu ogolaado allaa uu yahay kan ayaa wuxuu u diidayaa in la galo tusaale ahaan waxaanu dhan waad doonan kartaa ban category Twitter MySpace YouTube adult pornography laakiin individual ayaad ugu dari kartaa tusaale ahaan waxaan leeyahay ma doonayo Facebook in la galo kaasoo aan u ogolanay kii hore kanna waan u diidaynaa okay ayaan leeyahay waa loo diiday ban website allowed website waa kan apply ayaan leeyahay okay ayaan leeyahay marka haddii aan halkan tago Facebook tabcan horaan ayaan u furay bal refresh aan ka dhigo cash waa cash garaysan yahay marka waxaan sameynayaa waxaan tegayaa mid kale ayaan tegayaa ugu horeyn waxaan leeyahay kan ayaan minimize ka dhigayaa halkan ayaan geynayaa internet explorer ayaan furayaa markii aan furo waxaan ku laabanayaa meeshan waxaad arkaysaa in inactive uu yahay store ayaan leeyahay iminka halkan ayaan tegayaa Facebook ayaan leeyahay Facebook ayaan riixayaa waxaa dhacaya halkan hoose waxaan ku aragnaa
website has been blocked ayaan ku arnaa halkan hoose. Tabcan systemka haddii aan kusii yara dheereeyo arki maayo kan, laakiin waa blocked, access blocked ayuu leeyahay, blank ayuuna kuu soo saaraya. marka haddii aan ku laabto aan idhaahdo facebookii blockingka lagu sameeyey, waxaan leeyahay delete ka dheh, apply dheh, okay dheh, waa active saa ku aragtaan. haddii aan refresh idhaahdo, isla markii wuxuu sameynayaa dhankii cashka blog ahaa, kan ayaan ka saarayaa, mid kale ayaan furayaa mar labaad. waxaan leeyahay facebook.com, saa ku aragtaan waan kusoo baxay. bal aan ku qorno magac facebook, aan qorno info@sologroups.com, kadibna waxaan leeyahay abc123 ayaan leeyahay, login ayaan leeyahay. tabcan ma jiro, wuu ka baxayaa. marka haddii aan ku laabto dhankan aan ku laabto, marka dambe keystroke la sameeyey oo halkan ah ayaan eegaya. marka waxaa la isku dayay internet explorer in la galo. waxaad aragtaa info@sologroups.com, abc123, export ayaa ka dhigi kartaa, clear ayaa ka dhigi kartaa. marka intaanan usii gudbin kuwa kale, waxaan sameynayaa kan no ayaan leeyahay, minimas ayaan iska leeyahay, kana waa fahnay, kana minimas ayaan leeyahay. marka blockingka halkan ayuu yaalaa, website blocking. kuwa loo ogol yahay waa kan, waan ka saari karaa delete. waxaan dhihi karaa total limit time, schedule ayaan u sameynayaa, click drag ayaan leeyahay. halkan wuxuu noqonayaa blocked ayuu noqonayaa a time. tusaale ahaan haddii youtube oo kale loogu talagalay, xilliya qaarkood loogu talagalay, waxaan leeyahay total limit 1 hour hadduu yahay, 2 hours, 3 hours, 6 hours, ama schedule u sameeya. waxaan leeyahay xilligan monday to saturday oo xilliga iskuulka oo dhan youtube waa mamnuuc, lama geli karo ayaan leeyahay. halahan haddaan doono u furaya, halahan aan u furaya, haddaan doono okay ayaan leeyahay. sidaas ayuu uga xirayaa. marka kaas waa face blocking, website blocking, wax walba. kuwana allow, kuwana automatically ka blocking garee. application blocking, tusaale ahaan waxaan u diidayaa firefox, waxaan u diidayaa yahoo messenger, google chrome, waxaan u diidayaa kuwan oo dhan oo aan leeyahay lama geli karo applicationka kaas. kaasna waad xulaysaa, kana aad ayaad leedahay, waad ku daraysaa. markii aad ku dartid automatic ahaan halkan ay ka gelaysaa, internet explorer kan ay ka soo qaadaysaa, waxaad leedahay block ayaad leedahay. window security, kani aad ayuu muhiim u yahay. waxaad restrict ka dhigaysaa access window control panel. tusaale ahaan haddii aan idhaahdo kan saan ku dheh, apply dheh, okay dheh, wuu socdaa active. waxaan aadayaa dhanka iyo c panel ayaan furayaa. isla markii waxaad ka aragtaan c panelki markaan riixaba wuu soo baxaya, oro iyo isku xiraya. kaasi isaga ayaa block ka dhigaya. marka isla meesha ayaan ku noqonayaa window security ayaan leeyahay, waan ka saarayaa. waxaa kaloo uu diidayaa oo kale restrict access registry, disable command prompt, cmd-ga, wax walba halkan ayaa block kaga dhigaysaa haddii aadan dooninin. wuxuu anfacayaa kan internet kafeega dadka iskale ayuu aad u anfacayaa, sababtoo ah restriction ay ka dhigi karaan. user account oo horaan u naqaanay, kuwan ayuu affect garayaa. marka kan si fiican ayaan u fahnay. marka applicationadii iyo wixii captureka lagu sameeyey halkan ayay yaalaan. tusaale ahaan screenshotka haddii aan saanan u eego, waa meeshii aan galnay, xilligii aan galnay, recording hadda ku socda camtasia studios oo taqaanaan. systemkana waa ujeeda halahan ayaa applicationka launch laga dhigay. marka intan application ayaa aan furay oo aan isticmaalay xilligii aan diyaarinaya cashirka. chart haddii aan saan u eego, inta ugu badan camtasia record oo iminka socda ayaa qaatay internet explorer, comsurrogate, internet explorer. visited websites, intan website ayaan tegey. outlook waxaan galay sologroups@hotmail.com oo haddaan aragnay. blacklist waxaan ku sameynay facebooka, chromeka, waxyaalihii aan galay oo dhan halkan ayuu ka soo baxaya. marka haddii aad doontid waxaad leedahay highlight ayaasaan u leedahay, waxaad leedahay open the site ayaad leedahay. isla wuxuu kuu furayaa siteka ayuu kuu furayaa, background ayuu kaaga furayaa, wuxuu kuu soo saarayaa siteki weyn ayuu kugu soo saaraya, halkan kaaga soo saarayaa. halkan ayuu yaalla halkan hoose. halkan waxaan leedahay chart, intay ugu badneed, waxa ugu badnaa facebook oo la galo. waxaa kaloo ku xigay blank, waxba ku jirin, hotmail iyo google. type strokes, ujeedaan wixii type stroke aan ku sameeyey. haddii aan google halkan galana ff ayaan ku qoray, isagana qaabkaas ayuu shaqeeyey. search queries hadduu jiro halkan ayuu kuusoo dhigaya, ereyada la raadiyo halkan ayuu kuusoo dhigaya. open query ayaa leedahay halkan, export ayaa leedahay, clear ayaa leedahay. computer activities
waa sologroups.com xilligan ayaa la galay waxyaalahan ayaa laga sameeyey iyo screenshot oo halkan yaala screenshotkana wuxuu ku tusayaa meel alla meesha la galay marka cashirka markaan bilaabay waad ku aragtaan view haddii aan idhaahdo waa kan isu noogu soo saaray marka kan ma ahan originalkii kan waa recording halkan aan ka samaynayno iyo kan oo sawir oo ka qaaday kan waa sawir waa kan xilligan aan duubaynay duubis waxay maraysay 2:21 ayay maraysay iminka wuxuu marayaa ilaa iyo 16 minute ayuu marayaa marka activiskii saas ayuu qabanayaa marka markuu soo sameeyo aad ka baxaysa sanad uga baxaysa wax walba sanad ugu jira marka wuxuu useful ku yahay sida ku aragteen in monitor nooc u ahaadaba lagu sameeyo kaasoo kan ugu muhiimsan uu yahay kan inuu every 1 hour halkan uu kugu soo diro isagoo email waxba kale aadan u baahnayn wax walba uu kugu soo dirayaa markaad xirtidna waxaad ku soo laabanaysaa control s marka bal aan idhaahdo xir aan idhaahdo that you are now closing HT employee monitor but it will continue working invisibly iminka waxaad xiraysaa softwareka la yidhaahdo HT employee monitor laakiin wuxuu u shaqaynayaa invisibility kaasoo ah si aan loo arkin to open the program press control plus s ayuu ku leeyahay haddii aad doontid halkan laakiin aniga waxaan leeyahay kadaa sababtoo ah waxaa laga yaabaa in la iloobo marka waan xirayaa waxaan leeyahay control s ayaan leeyahay waad ujeedaa iminka طبعا wuxuu u baahan yahay password ayuu u baahan yahay passwordkaasoo ahaa kii aan u samaynay isagoo active ah ayuu saan usoo noqonayaa waad ujeedaa mar walbana kuu sheegay kan maba loo baahna waan xiraynaa marka kani waxaad isticmaalaysaa control s-ka xilliga aad ku sugan tahay xafiiskaaga ama gurigaaga laakiin haddii outside aad tahay ama dibadda aad joogtid ama meel kale aad tahay waxaa muhiim ah in emailkaaga ayaad furaysaa emailkaaga ayaad eegaysaa emailkaaga ayaa halkan ka arkaysaa dhanka monitorka configuration aad ku samaysay email reporting isla markii isaga ayaa kuu soo diraya kuu sameynaya marka waa current status waa muhiim waa inuu ahaada active haddii aan idhahdo stop inactive ma shaqaynayo waa inaad tirahdaa start waxaadan hubina mar walba help ayaa tegaysaa halkan ayaad ka egaysaa saa ku aragtaan waa full version 9.3 furaha ugu dambeeyay waa kan 9.30 ayuu ku shaqaynayaa optionadanna waa kuwa halkan ku yaalo halkan lagugu soo fududeeyay ayuusaanu noqonayaa marka wuxuu noqonayaa mid aad u xiiso badan marka haddii aad tidhaahdid tusaale ahaan uninstall I usually want to completely uninstall yes ayaad leedahay systemka isla markii uu ka saaraya sababta waxaad gelisay oo aad halkan ku gelisay wuxuu ahaa passwordkii laakiin qof kale haddii uu isku dayo inuu ka saaro uninstallation uu ku sameeyo tabcan u shaqayn maayo sababta wuxuu weydiinayaa passwordkii awal settingka loogu sameeyay weydiinaya marka waxaan filayaa cashirkan xiisaha leh oo aan ku samaynay security and testing kaasoo ah HT employee monitor 9.3 waa spy on everyone ama jajus ku samee ama dabagal qof walba oo aad doonaysid inaad hesho halkan ayaan kaga baxaynaa wixii macluumaada mar walba info@sologroups.com ayaa kusoo diraysaan anigoo ah macalin cabdinaasir intaan wada kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu